السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan. Habeen wanaagsan. Guriga madaxweynaha Donald Trump ee ku yaala goobta lagu raaxaysto ee Florida ayaa la sheegay hawadiisa in markaa dhowr mar ay diyaarado soo galeen. halka waxay ku qasbanaadeen diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Mareykanka inay ka hortagaan diyaaradahaas. haddaba maxay tahay sababaha diyaaradahani ay mar walba ugu soo dhawaanayaan goobaha diyaaradaha ka caagan ee laga ilaaliyo guriga Donald Trump? haddaba Trump ayaa xaaladiisu iminka walwal uu soo food saaray. mar walba waxa leeyahay halkan laga soo galay, halkan sheeko cajiiba oo laga qoray. sheekadaas aynu barnaamijkeedu kula wadaagi doonaa. waxa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa tirada dadkii maanta ku dhintay Gaza oo ay duqeysay Israa'iil oo sii korortay. tafaasiil ku saabsan xaaladda Gaza wararkii ugu dambeeyay waan idin hayaa. waxa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wasiirkii hore ee dagaalka Gantz ee Israa'iil oo sheegay fursadda ay haystaan Hamas haddii la diido wada hadallada socdaay inay fursad weyn ay ku heli doonaan Hamas ay dib u habeyn isku sameeyaan, ay isxoojiyaan. sidaa daraadeed wuxuu sheegayaa isagu in markaa wada hadalladu ay muhiim yihiin oo aan dagaal hadda lagu cararin si maxaabiista loo sii daayo. haddaba sheeko iyana arrimaha ku saabsan barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa. qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa warar ayaa kasoo kordhaya Gaza duqeyn maanta ka dhacday. hay-adaha caafimaadka ee magaalada Gaza waxay sheegayaan tirada dadka dhintay inay korortay ilaa 3 ay gaarayso kadib markii diyaarad daroora maanta ay weerartay deegaanka la yiraahdo Al-Bridge ee ku yaala bartamaha magaalada Gaza. haddaba duqeymaha iyo weerarada ay qaadayso Israa'iil ayaa mar walba waxay ka dhacaan Gaza, laakiin ma jiro weerar toosa oo ciidankeedu ay ku soo galeen Gaza wali ma jiro. laakiin duqeymahaas ayay wadaan oo maaragtay mar walba ay sameynayaan meelaha ay doonayaan inay markaa wax ku garaacaan. haddaba ilaa hadda tafaasiil lagama hayo cidda ay beegsadeen iyo dadka ay dileen, laakiin Gaza waxaa la leeyahay waxaa ku soo laalaabanayay maalmahan weerarada Israa'iil oo markaa aan toos ahayn oo ay dadka ku dilayso. hadda maanta waxaa leeyahay 3 qof ayaa dhimatay. qodobka halkaas aan kaga gudbaynaa ku saabsan xaaladda Gaza sideedoo kale waa iska caadi, wax hadda kaloo cusub oo soo kordhay ma jiraan. wada hadalladiina weli sidii waaye. ninkiyaa la sugayaa berito oo talaado ah isagoo ku ballansan inuu tago Dooxa. markaa Witkoff ninka la leeyahay ergeyga ayaa isagu markaa halkaa tagi doona. wixii ajandaa uu keeno iyo qorshe cusuba markaas ayaa la isla ogaan doonaa. haddaba qodobka kale ee barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa ninka la yiraahdo Gantz oo ah wasiirkii hore ee dagaalka Israa'iil ayaa wuxuu sheegay war weyn oo ku saabsan xaaladda Gaza. haddaba Gantz warkiisa waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah. wuxuu sheegay dib u dhigista wada hadallada inay u adeegayaan Hamas sida uu yiri. wasiirkii hore ee golaha dagaalka Israa'iil ninka la yiraahdo Benny Gantz ayaa wuxuu sheegay in markaa heshiiska oo dib loo dhigo ay maslaxad u tahay Hamas, taasoo u baahan inay dib isu habayso oo lafteeda ay diyaariso ayuu leeyahay oo dib u habeyn ay isku samayso. marka Gantz wuxuu leeyahay wada hadallada yaa dib loo dhigin, wada hadallada hala wado, maxaabiista la soo daay. laakiin haddii wada hadallada dib loo dhigo Hamas iyada dan annaga inta aan dan ku qabno ayaga naga badan oo iyagu hawlay wataanba shaqay wataan, way istiyaarinayaan, ciidankooday diyaarsanayaan, xaafadihii u kala qaybsanayaan, meelihii markii hore qaladaadku ka dhacay iska saxayaan, taliyaal cusub ay magacaabanayaan, godadkooday habaysanayaan. waa nimankanu dagaalku hawshooday wataan u leeyahay. marka inta aan faa'iido ku qabno heshiiska oo dib loo dhigo ayaga maartay naga faa'iido badan.
marka wuxuu leeyahay arrinka heshiiska ha laga shaqeeyo si maxaabiista loo soo daayo ayuu leeyahay oo markaa hawsha halkaas ha laga sii wado. qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa. qodob kale oo muhiim ah ayaa jira oo ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo Falastiini ah oo wax ka baranayay waddanka Mareykanka ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay sheegtay inay kala laabatay fiisihii waddanka uu ku joogay kadib markii la sheegay inuu hogaamiye u ahaa ardaydii jaamacadda Columbia oo maaragtay isu soo baxyada Falastiin lagu taageerayay sameynayay. ninkan marka isagoo xiran ayaa laga qaaday sida ay leedahay gabadha looyarada u ah oo marka isaga looyarka u ah. haddaba waxaa la sheegayaa marka gabadha looyarada ah inay dalbatay oo Falastiin ay marka wiilka ardayga Falastiiniga ay sheegtay in markaasi isagoo xiran wasaaradda arrimaha dibaddu ay kala laabatay fiisihii uu wax ku baranayay. journalka Wall Street Journal ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in ardaygaas oo magaciisa la yiraahdo Maxamuud Khaliil kaas lagu xiray jaamacadda Columbia markii lagu soo eedeeyay inuu isagu hormuud u ahaa dadkii ka sameynaya halka dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha meesha ka sameynay. marka waxa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda sharciyo cusub ay soo saartay dadka waxbarashada u jooga ee halka jooga ardayda ah hadii lagu helo inay dhaqdhaqaaqyo waaweyn sameynayaan oo ay ku taageerayaan Xamaas in fiisaha laga laabanayo. marka ardaygan ayaa ninkii ugu horeeyay ama ardaygii ugu horeeyay Falastiiniya ayaa marka noqday ayaa leeyahay sida looyaradiisu ay sheegayso ama garyaqaanada uu leeyahay oo u doodaysa ay leedahay. qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa guriga uu ku raaxaysto uu leeyahay ninka la yiraahdo Donald Trump oo hawadiisa meel ka mamnuuca diyaaradaha la sheegay bishan gudaheeda 3 mar in diyaarado ay soo galeen iyadoo laga baqayo odaga in diyaaraduhu ay markaa isku qarxiyaan. waxay abuurtay taas in diyaaradaha dagaalka Mareykanka F-16 inta la kiciyo diyaaradihii halka looga hortago. haddaba sababtu maxay tahay iyo sheeko waali ah oo arinta laga qoray ayaanu qaybta dambe barnaamijka ku faahfaahin doonaa. haddaba qaybtan waxaanu ku faahfaahinaynaa maalin hore ayay ahayd in aqalka cadnin qori wata oo hubaysan inta gaari soo qaatay dhigtay oo askartii waardiyaha u ahay Donald Trump uu nagta ka saaray isagana markii dambe inta la dhaawac xun loo geystay isbitaal la geeyay maalmo ka hore ahayd. haddana waxay soo saareen ciidanka isla ilaalada madaxweynaha gurigiisana way ilaaliyaan uu tagaa mar walba Florida ku yaala ee lagu raaxaysto meeshaas guri weyn oo ku leeyahay. gurigaas isaguna hawadiisa waa la ilaaliyaa inaysan wax diyaaradaha u soo dhawaan. markaas waxa leeyahay maalmahan diyaaradaha nafta u keenay oo mar walba ku soo dhawaanaya guriga ilaa markii dambe diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ciidamadoodu ay ka hortageen diyaaradahaas. tafaasiil badanna lagama hayo diyaaradaha raid kaliya lagu koobay warka. haddaba markaan aragno jariirada Ra'yul Yawm oo soo xiganaysa jariirada weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo Axios oo qortay in markaa laga hortagay 2 diyaaradood oo kuwa raidka ah oo ku xadgudbay hawada aan loo ogoleen diyaaradaha meel ku dhow goobta lagu raaxaysto Trump uu leeyahay ee ku taala Florida waddanka Mareykanka. haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay taliska difaaca cirka ee dhinaca waqooyi ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay ka hortageen diyaarado ku xadgudbay hawada goobta la yiraahdo Mar-a-Lago oo ah meel lagu raaxaysto oo uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo ku taala gobolka Florida. marka waxaa la sheegayaa in marka meeshaasi diyaaraduhu ay ku xadgudbeen. warbixintan oo shalay galkii dambe axadda ahayd laga helay oo ay soo saareen ciidamada Mareykanka. mowqica Axios wuxuu leeyahay waa markii labaad 48 saacadood gudahood marka diyaaraduhu ay markaasi sameeyaan inay guriga Trump ku soo dhawaadaan. waxaana la sheegay in diyaaradda F-16 ay ka hortagtay diyaaradahaasi oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa rayid ah. waxaana la sheegayaa bishan Maarso gudaheeda xadgudubka diyaaradaha ay ku soo dhawaanayaan guriga Donald Trump in uu yahay markii saddexaad. waa sheeko la yaab leh. odagii Trump waa la haystaa diyaarada gurigaaga u soo dhawaatay diyaarada la kiciyay nin qori wata yimid aqalka cad uu xabadeeyay askartaadii saana dhacday
odagii waa wareerinayeen meel hoose uga soo baxeen qolaa baasha ku wareerisay marka waa arki doonaa wixii warar soo kordha